hoose nimas ilaahay dawlad goboleedkiisa ka dhigi alleedahay canshuur ma heli karo waa Soomaaliya nuskeed waxaad amaanaysaa nin Kismaayo bas haysta Kismaayo bas nin haysta amaanaysaa adeero fadlan hadaad farmaajo madaxweyne farmaajo adiga isna cabtihiin Soomaaliya dabadeed iyo afkeeda isku ma xiri kartid waa la soo dhaafi waayaha lama arin anbay mid noqonaysaa in sida ay u sheegeen dadka qaar ay u fasirteen hadalkaaga nin la laway oo waayeela oo daa inaad noqotay iyo in aad muxuu ahaa ay dawlad nacayb aad ku dhimanayso ilaa qaatumaad joogtahay dawlad nacayb aad ku dhimanayso Soomaali baa leh ajaanib ma ka taliyo adeero 13 qof 13 dhalinyaro ah ayaa iyadoo intaan ka liidato ee qori caaradiis lagu haysto ayay xoreeyeen Soomaaliya maanta daba dhalifyada wadamo ka shisheeye u daba dhaqaaya cag looma dhigaayo buudka lagu kor soconaa adiga iyo wixii kuugu mabda been ma ku sheegayo cag ladin dhigi ma doonta waa raran tahay iyadoo qayreedis iyadoo bashbash leh iyadoo nabad iyo nololaysa iyadoo muxuu ahaa green ah dhinacaada ka soo raac Soomaali baa tahay nacfigiyo dhamaasar doonta ugu weyneed oo Soomaali ay saaran tahay waa raran tahay dhinacaada ka soo raac hadaa diido hadda ciidamadii burtiin lay soo marooyaan waan lagu soo qabanayaa waliba laga xishoomaay 8 jeer waa hal dhaaf lagu dhiima waxaan ogahay xilligii midowga maxkamadaha markii la soo maray Gelinsoor la soo maray imaamadii guduudneeda madaxa idinku wada duubneed adiga iyo Allah u naxariistay intii markaas joogtay Puntland maanta ciidamada waxay burtiin lay soo marooyaan dhinaca kale dhooblay soo marooyaan adiga ama Soomaali soo raac ama adoo xurriyada laga qaadaya lagu keenin doona waa dhamaatay maamuladii dikreega ay dhoobeen waqtigooda uu dhamaaday kuwa Soomaaliya federaalka Soomaaliya qaabka ay u rabtaa loo qaadanaya ama kana waxaad leedahay adoodadaas ku jira wiil yaro BBC-da ka shaqeeya waan dacweynayaa dacwaan ka qoraya leedahay bal aniga ii soo dacweey federaalka kan aday aad dhistay ma aha oo muxuu ahaa Puntland iyo ka dhisan Jubaland ma federaalka aan rabnaa waa kan dalka Soomaaliya isku haynay Ahmedow waad ogtahay Tigray dhis Puntland in Tigray dhis odayaashii iyo aqaliintii reer Puntland oo dhama afka gacanta saartay oo yaaban oo aaminsan waxa dhacaya la yaab ay la tahay aqaliintii dadkii wax galka ahaa oo reer Puntland oo dhamaad wada cadaadinaysi oo aad rabtiin inaad dalkoodii aad jijoobtiin oo Soomaalinimadii aad nacsiisiin ladinka yeeli ma koonfur galbeed waa qayraysan tahay dawladda Soomaaliya ay taageersan tahay si jidkii federaalka laga rabay ay saaran tahay Hiirshabeelle waa qayraysan tahay jidkii laga rabay Hiirshabeelle ay dawladnimada iyo federaalka laga rabay ay saaran tahay galmudug waa sidoo kale Banaadir State-na waa soo socdaa iyadoo oo carqaladeeda qabto oo dhaqaalaheeda oo wax walba wadato haddana governorkeeda yaa shirka dhinac ka fadhiya shalay hadii islahayd Soomaaliya ku maquuni 18 gobol oo faalsada ahaayo Maxamed Siyaad Barre sameeyay Soomaaliya ku maquuni hadii islahayd been ay noqotay intaas oo dawlad goboleeda korkaaga ka dhismay heerkii hadda waxa la joogaa ad soo nacilheed federaalka adiga ruuxaada waa isqirinay moogi Cabdiraxmaan Faroole ilaahay ka cabso ummadda senator tahay waliba fiiri senator federal xilin federal tahay haddii maanta dawlad goboleedka Puntland xildhibaan ka tirsan allahan leed kuma jawaabdeen markay waxa jooga dawlad goboleedkii kale ku jawaabi lahaa joog laakiin adiga federaalka ka tirsan ana ku jawaabay adeero Puntland Soomaaliya inta ka saartay oo qabiil u kala saartay ad wax walba soo saartay ayaa Puntland qofaan Maxamuud Suleymaan ahayn as madaxweyne ka noqonayn Cabdiraxmaan run hadaad sheegaysa Cabdiraxmaan Juriili oo agtaada fadhiya madaxweyne ka dhig madaxweyne Cabdiraxmaan Juriili bari madaxweyne ka dhig Puntland ugu dhig aqoon ka badan cilmi ka badan karti ka badan
maxamuud suleymaan ma ogay cid kalood aaminsan tahay male soomaaliya oo dhan sida usii fatixinaysaad maxamuud suleymaan taagan tahay maalin dambena ciise maxamuud aad tegaysaa ciise maxamuud aad kala saarsaaraysaa war xisho waa lagaa xishooday walaalo xisho waa lagaa xishooday oday soomaaliyeed noqo odaynimadan kuwa ogolnahay jubbaland yaad ammaanaysaa maxaad ku ammaanaya calaashaan kafla laxaa madaxweyne ka ah saas waay saasaad ka wadaa wax kaloo dadka u sawan maaya ma laha kabla laxaa ka ah axmedoobaa ka ahaad ka wadaa gobolkaas nin walba maalintiisa uu madaxweyne ka noqonaa shanta soomaali shanta qabiil oo maanta wax lagu qaybsado qabiil ka maqan cabdiraxmaan oo ii sheeg biri anaa ka noqonaaye saadaba mariixaanaa ka noqonaaye saakuun adaa ka noqonaaye maalinta ku xigta diraa ka noqonayso maalinta ku xigta digil iyo miriflaa ka noqonayso ogolow soomaalinimada in wax lalee ogolow haddaadna ogolaanin qasab iyo sudulla lagu ogolaysiinaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin intii muxuu ahay waraysigayga dhibsata raalli ha ahaato odaygaas wax kale oo jid kale oon ugu jawaabo aan garan waaye oo aanan ka ahayn in waxuu asaga calooshiisa ka buuxo aan bannaanka soo dhigo waxa asaga aaminsan yahay inaan bannaanka soo dhigo maahayna qabiil nacaybiga maaha walaalahay waa jeclahay cid walba oo soomaaliyeed waa jeclahay puntlandna igumaba sii jirtoba dadka reer puntland waa dad ahlow xigmo oo aqli ah waa dadkii laga soo gaaray dowladnimadu ma aha cabdiraxmaan farool muudaa boqolkii sana waxaa laga yaabaa cabdiraxmaan farool oo kale oo muxuu ahay dalka dhibaaya inaad ka soo dhexbaxo laakiin dad wanaagsanaa ka soo dhexbaxay dad wanaagsan oo dowladnimada iyo xorriyadda noo keenayaa ka mid ahaa reer puntland waa dahabka labaynta soomaaliya waa laakiin cabdiraxmaan farool oo adiga kuma jirto intaad joogtay muxuu ahay garooba joogtood madaxweynaha ahaydna dastuurkaa iska dabalaabanaya aad ku qasabta oo meel walba hadalkaaga iyo waxa hadda kaa buuxa ay ka muuqato asagana waa saxaynaa insha allah baynlaha kariin waan saxaynaa si caqli aan ku saxaynaa haddana waxaad xildhibaan ku tahay qodobka 6aad farqadiisa 3aad ayaad ku tahay oo labada aqal adoo ka maqan lagu daray oo wax looga bedelay marka aad baad u mahadsantihiin intaasaan kusoo gaabinayaa waxyaabaha kale oo iska hadlay ee qabiilka iyo mariixaana kan ah iyo waxaasne say u taallaa mariixaanka adaas kula dhashay anigana walaalaheen waaye farmaajo adaas kula dhashay haddii aad xumaysane waxaa weye soomaalidaasay ka mid yihiin aad xumaynayso haddaad wanaajisana walaalaha aad wanaajisid waay maalin dhaweet waxaan maqlahay adoo dhahaya war sidii ninkii hore aad u ceyriseen de hawyow sidii nimankii hore u ceyriseen oo ninkii maxamed afweynahay ninkii sidaad u ceyriseen war heedha kana u ceyriyay adoo lahaan maqlahay annaga wax ma ceyrino walaalnimadaan jecelnahay dowladnimadaan jecelnahay dhinaca wax laga ceyriyo waad garanaysaa iyo dhinaca wax laga naco iyo dhinaca naciibka laga keeno waa garanaysaa allah idin hadeeyo khayr baan idin rajaynaya waana idin soo ducaynaya insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu